cabdiraxmaan bin cawf isagoo sooman baa cunto fiican loo keenay wallahi inuu cuno iska diido u ooyey yaa cabdiraxmaan cun baa lagu yidhi cuntada maxaa la cuni laadahay walaalkay muscab bin cumeer oo iga khayr badan baa dhintay buu yidhi maalintuu dhimanayayna muscab bin cumeer uu dhintayna mara kafan aan uga dhignaan weynay wuhi mara kafan aan uga dhigno mara keliya izaar baan u hellay izaar gunti xagga sare markaan ka saarnana lugaha mijaha ayaa noqonaya bannaan xagga mijaha markaan ka saarnana madaxa ayaa maaragtaane muuqanayay xaggii madaxa intoon marada ka saarnay ayaan mijihiisiina geed intoon soo qaadnaan ku dubnay waa muscab bin cumayr waman muscab waa ayo waa muqri weeyaan madiinata almunawara nebi maxamedoo aanan soo gaadhin waa yarkii sababta u noqday inay aqal walba ay dacwaddiiyo diinta islaamku ay biyo dhigto madiinata almunawara uu nebigu uunan soo gaadhin oo misiinna aanan lahayn oo markas dacwadada aan laga dhisin ayuu muscab binu cumayr intuu beer dhex fadhiistay kolba qof sidii loogu keenayey kolba qof siduu u siyaaranayey ayaa diintii islaamku aqalladii madiina o dhan wada gaadhay markaasaa qoys kastoo reer madiinaa ayay bilaabeen qur-aanka in lagu akhriyo lagu dhex barto nebi maxamed oo madiine soo gaadhin aqal kastoo reer madiina ku yaalla qur-aanka lagu dhex akhrisanaya muqri fatan quraysh intuusan islaamin ka horna waxaa la odhan jiray wiilka quraysheed wiilka quraysheed yacni waxaa laga soo qaaday quraysh nin kale oo dhallinyaraha inaysan lahayn muscab mooyaane yacni quruxdiisa iyo xaragad badnidiisa markaasay gabdhaha quraysheed odhan jireen muscab baan la soo xaasaabo oo la sheekaystay waa ayaam aljaahiligi zaman jaahiligi weeyaan dharka uu gashado shaam baa looga keenayey kabaha u xidhana shaam baa hooyadii uga keeni jirtay uu islaamay raaxadii buu ka tegey dharkii iyo nolosha caynkaaye tarafkii iyo tanacumkii uu ku jiray ilaahay rasuulkiisuu ka doortay markaasay hooyadii ka daba timid day tidhi muscabow baadna cuni maayo biyana cabbi maayo hadhna istaagi maayo diinta muxammadood ka soo noqotid mooyaane cadhaadda ha ku dhinta bay tidhi ooyo macaanay buu ku yidhi baadkaagana iska cun biyahaagana iska cad hadhkaagana ku noqo oo hadhkaaga iskaga noqo 100 nafood haddaad yeelato oo midda mar halkaa ay kaaga baxdo diintan islaamku tuwaa ka soo noqonaya maahina hooyo ma soo noqonaya khalaas madiinata almunawwaruu nebigu markaa u diray madiinata almunawwaruu nebigu u diray dharkaa ku dul googo'ay maalin maalmaha ka mid a markiu nebigu madiine soo gaadhay ee magaalada madiina muhaajiriintii ansaartii ay wada yimaadeen ayaa muscab binu cumayr oo cabaa'ad maaragtaana googo'da mara googo'an oo karkarma leh xidhan oo weliba intuu maxaad tidhahdaa baalka suraarkan maxaad tidhahdaa lagu badhankiina uu ka go'ay qodaxna uga dhigay maaragtaana iyo qori uga dhigay badhan ayuu soo agmaray baa la yidhi markaa nebiga markaa buu nebigu lilma sii daayey sal allau alay wasalam cali binu abi taalib baa ku yidhi yaa rasuulallah maxaa ku helood la ooyeysaa ii sheeg wuxuu yidhi alaa taraa buu yidhi cali muscab miyaanad arkayn buu ka yidhi nolosha uu ku nool yahay yacni tacabka ka muuqda maad arkayn faaqada baahida dharla'aanta nafaqadarrada ka muuqata waxaan xasuustay buu nebigu yidhi intuunan islaamin ka hor nicmaddii uu ku noolaa baan xasuustay iyo nolosha hadda uu ku nool yahay nolosha hadda muscab binu cumar uu ku nool yahayna ilaahay rasuulkiisaa kaga raaliya buu rasuulku yaa macshar ashabaab dhallinyaro ayaad ku dayanaysaa maanta adigu muscab binu cumayr raaxadiisii tanacumkii uu ku jiray xarragadii uu ku noolaa hooyo barwaaqaysan oo hanti oo xoolo oo ilaahay hanti uu siiyey ayaa haysatoo dhashay bay ahayd noloshii caynkaaya intuu ka yimiday ayuu wuxuu doortay nolosha inuu ku noolaado dharla'aan hoy la'aan cunta la'aan markaase waxaa ka muuqata jidhkiisa mujaahadaa ka muuqata mujaahado ayaa ka muuqata iyo cadamu tacayush markaa buu nebigu leeyahay noloshaa uu ku jira hadda ma u jeedaan haa ilaahay rasuulkiisaa kaga raalliya buu ka yidhi innagana maanta dhallinyaradeenna ayaa ku dayanayaan
هير وقت ير دلال وقت ير لحسنه أيوه سعد بن معاذ أيوه نبي عك جوجي مقام كوكو كارنا أيقو فرسو كيري دي سي دمشق دي سي عرشك الرحمن كون دقاقي بالله واللحسنه أوكليا أبا هريرة مدير إنت كتو أيوه سبب نبي عك جوجي لكن ومدين تلك وحي وهي ودنبو استعداد ودنبو ديبي وعو كرب إلهي علم إلى قيامة الله منافسنا عن أبي هريرة لليه دائمة هذه الأمة وأئمة أمتنا مدير بيدوير كل ولايات علم البضع بأمته وقتين علم البضع وإلى يومنا هذا كتب تسنفين قارقود عن القريب اسكن نولو اسكن بوكو اسكن ديمو ماها مقصود كصداس صدا حولها ونولوشا حيوان كنولوشاس هنا دعنتا أو دعبتا أو صيحتا أو ميلاha intood fadhiisato aad ka qaylqaylida ood gabowda ood bukoota ood iska dhimataa bilaa hadaf waa nolosha xayawaanka muslimka hadafkiisu maaha sidaas muslimku waa inuu noqdaa qof adduunkan wax ku soo biirinaya wax ku biiri lana adduunyada adigu ka teg khayr ku beer khayr ku soo biiri adduunyada hidaayadda sabab u noqo islaax adduunyada ku soo ziyaadi khayr ummaddu kaa mancafasato ilaa qiyaamaha lagu hadalhayo وأمتك وقصة وعيسو كالشقاء الدال على الخير كفاعله نيكا دادك خير كبتصاب ونبي يري واسد إن خير كيسما يبو رسول طريقه ما حينا طريقه أفرين يا عمانتا طريق المجاهدة ماها دعوة ماها وحي قصعته سيدا إنكو هذو هايستان اجتماع اللقبتي دادبا كسو قريب لي بيانا لدقيستي أغلال لبكرا النقضي ما يعمل كان ومجاهده وعن لنا يا أو يقين سنة هاي كل غير مركز كاي نود سنة أنت عليك هي مجمع ما أنت هلقا مسجد كا أريني سفر دي دقي سنة يا وعكر راح سنة إنه محي وتدحير رك ورأي قلنا تدحيات رك إنه هريي أي بحيان أي إن سوجدوا هلقا إنك ينوبوا بركة تدحيات سكوت تجي أي أمضي كل اسم يسابون الشيخ عبد الوهاب نجمع التضحيات ونجمع صلاحيات الأمة نبي عليه الصلاة والسلام صفات كي صحابنا أو كل مية تضحيات فوقي كلا دوانانا أو كل مية رجل مدي خالد ابن الوليد هي داهيتي عمر بن عاص هي الرحمتي أبي بكر الصديق هي شدتي أبي بكر هي شدتي عثمان هي حشوتك عثمان بن عفان هي سخاوتي عبد الرحمن بن عوف هي زهدك أبو ذر هي حفظك أبا هريرة هي علمك معاذ بن جبل هي فقهك ابن عباس هي الرجل مدي قعقاع أتعرفون من هو قعقاع صلاحيات كابو نبي جمعيي لأن مركب النبي مطلسي إنك أنا ما أنت الرجل لماذا وين نقول بحثتها قار وحلا جابا أبو بكر إنه يشبهان قار عمر إنه يشبهان قار خالد إنه يشبهان قار عثمان إنه يشبهان قار عبد الرحمن إنه يشبهان قار أبا هريرة إنه يشبهان لكن صفات قاسي وآسنتها يا مانت صفات كاس بحسن أي إلى العلماء جهد كان دعوة وحن وقد لنا هاي صلاحيات كأمة إلهي وكوكلا أبوري إما لك لدون ونول بالله ديو أيام كل من إنا لأن مركب إلهي هداية فيصلين هداية هدو إلهي فيصلين ما تقعنا واحد عايا لا تكون باطل أقبل ما يان حتى يسكسوا الدوران ينهددون شيخ عبد الله بحويري الله نحرسته ما نحن هذا اسمه ديان شعب كيني هرجوك سدان
ma hor joogsan karayaan waayo laana ilaahay hidaayadii buu faysalayey غلام yarkii yaraayo غulaamka boqorkii markuu ku yidhi haddaad rabta inaad idishid aniga halkaa igu xidh deedna sahamkiiyo kinaanadayda igu dil markaad igu ganaysa keliya ii dheh bismi illaahi rabbi lghulaam ku gan waa kaa dhimanaya markaa sidii uu boqorku u yeelay uu dhintay kii yaraa hidaayaddii baa ilaahay faysalayey dadkii maxay dhaheen waar dadkii maxay yidhahdeen aamannaa birabbi lghulaam waayo ilaahay hidaayaddii isagaa haya markaas laakiin tadxiyaadkii maadaama maanta ay kala baahsan tahay oo nin walba raganimadiisii iyo salaaxiyaddiisii meel gaara uu la fadhiyo ummadda markaa cadowgaa ka faa'iidaysanaya markaa natuub ilaahay aan u soo noqonno oo toobadkeenno oo dadaalkan mar labaad tallaabadana horay han u qaadno waxaa adduunyada ka dhacdhacayaad maqlaysaane la sheegsheegayo ilaahay eegi maayo waxaa dadka ducaadda niyaddoodaa ilaahay eegaa bay culimmadu yidhahdeen ninka daaciga jamaacadda isku fikirka isku hadafka hadday qalbigooga fikirkooga tadxiyadooda hadday mideeyaan waxay iyaku doonaan maayna wax kale adduunka ka socon maayo waa sunnada ilaahay dee insha allah dhahada inaan cimrigeenna caqligeenna xooggeenna raganimadeenna inaan dadaalkaa ku midayna ayaa u diyaara